khilaaf culus ayaa ka dhex qarxay xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya waxaana maanta baaqday shirkii ay yeelan lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo golaha mustaqbalka sida xogaha aan ku helayno golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa isku khilaafay nooca doorasho ee dalka ka dhici karta waqtigan isla markaana ay ula hortagayaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda aragtidiisa mar hore uu cadeeyay uuna rabo in dalka qof iyo cod uu ka qabto horeyna uu u tijaabiyay xubnaha qaar ee golaha mustaqbalka sida madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa soo jeediyay kuna adkeysanaya in doorashadii hore lagu laabto oo teendhada la aado isla markaana mid dadban la qabto halka xubnaha kale ee golaha mustaqbalka sida Sheekh Shariif Khayre Rooble iyo xubnaha kaleba ay diideen taasi oo ay dhaheen annaga uma laaban karno doorashadaasi madaxweynayaasha maamul goboleedyadana hoostooda ma tagi karno maadaama doorashadaasi musuqmaasuq badan laga soo wariyay khilaafkaas ayaa horta ka dhex qarxay xubnaha golaha mustaqbalka Axmed Madoobe iyo Danina waxay rabaan doorashadii hore in lagu laabto teendhada Sheekh Shariif iyo kooxdiisa kalena waxay rabaan inaan lagu laaban doorashadaasi oo yacni doorasho kale la raadiyo qof iyo cod ama nooc kale oo doorasho sidoo kale waxa yaab leh in xitaa xubnaha qaar ee golaha mustaqbalka ay soo jeediyeen aragti ah in muddo kororsi la siiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud bedelkii teendhada afisyooni loo laaban lahaa ama maamul goboleedyada xildhibaan intay soo saaraan kadib doorasho lagu geli lahaa arrintaas ayaa taagan shirkii maanta waa baaqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u sheegay mucaaradka inay ku soo heshiiyaan nooc doorasho oo dalka ka dhici karta dhammaantood oo heshiis ahna isaga ay u yimaadaan haddaba adiga maxay kula tahay aragtidaada nala wadaag muuqaalka noo sheer garay yaa saxan Axmed Madoobe iyo Dani iyo xubnaha kale ee golaha mustaqbalka